السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعمدا وضيال هلكن وجنالك الحرية نيوز waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorkaroon wararka aan idin hayna xilligan. Madaxda ugu sareysa dalka oo ka baaqsaday in ay ka qayb galaan munaasabada xuska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Wasiirka amniga oo fariin adag u diray ciidamada booliska Soomaaliyeed kadib markii uu ka qayb galay munaasabada xuska maalinka booliska Soomaaliya. Taliska ciidamada xoogga gobolka Hiiraan oo ku dhawaaqay howlgallo lagu furayo wadooyinka gobolkaasi. wafdi ka socda Somaliland oo siday deeq gargaar oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jubbaland oo markii ugu horeysay magaalada Kismaayo ka daahfuray shir ay garwadeen ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii dib loo doortay. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo fariin adag u diray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan wararkeena janalka Al-Xurriya News. Haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si aad u heshid wararka warbixinada waraysiyada 24 saac halkan aanu soo gelin. ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa wararka xilligan aan idiin hayno haatanna ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aanu ku bilownay madaxda ugu sareysa dalka ayaa ka baaqsaday in ay ka qayb galaan munaasabada xuska ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaa maanta garoonka Engineer Riso Exconis lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 76aad ee ka soo wareegatay aas-aaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed. munaasabada ciidamada booliska waxaa ka qayb gali jiray madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ama ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo khudbad ku aadan waajibaadka ciidanka booliska iyo dhiirigelin u sameyn jiray sanadihii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay. munaasabada maanta lagu qabtay garoonka Engineer Riso waxaa ka qayb galin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo labadoodaba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale munaasabada ka baaqsaday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Finish oo isna la filayay in uu ka qayb galo munaasabadaasi. madaxweynaha Soomaaliya oo ah taliyaha guud ee ciidanka ayaa inta badan dardaaran u jeedin jiray ciidamada booliska sidoo kalena dalacsiin jiray saraakiisha shaqooyinka muhiimka qabta xilliyada munaasabadaha noocan iyo kala ah ay ku soo aadaan. wali lama oga sababta rasmiga ay uga baaqdeen madaxda sare munaasabada ciidamada booliska oo ah mid muhiim ah si loo dhiirigeliyo ciidamada booliska oo ah ciidanka ugu faca weyn Soomaaliya. baaqashada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aysan ka qayb galin ayaa durbadiiba waxa ay abuurtay hadalhayn badan oo ku aadan sababaha keeni kara in xilligan madaxda ugu sareysa dalka iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho ay ka baaqsadaan munaasabada ciidamada booliska oo ah kuwa ugu faca weyn ee dalkan uu leeyahay. dadka indhergaradka ah ee arrimaha siyaasadda indheeya ayaa sheegay in ulajeedada ilaa iyo hadda la fahmi la yahay ay uga baaqsadeen madaxda ugu sareysa dalka balse aysan mudneen in xilligan ciidamada booliska iyadoo ay ku beegan tahay maanta sanad guuradoodii 76aad in madaxda ugu sareysa dalka iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho ay ka baaqsadaan. wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan saaxiibayaal idin leenahay meel walba aad joogtaan. wasiirka amniga ayaa fariin adag u diray ciidamada booliska Soomaaliyeed kadib markii uu ka qayb galay munaasabada xuska maalinka booliska Soomaaliya. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka hadlay munaasabada xuska 76 guuradii ka soo wareegatay aas-aaska ciidamada booliska ayaa ciidanka ku booriyay in ay laba jibaaraan oo adeegitaanka shacabka. wasiirka amniga ayaa sheegay in ciidanka booliska ay ku guuleysteen ka hortagga falal badan oo al-shabaab ay doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed isagoo bogaadiyay sida ciidamadu ay u gudanayaan waajibaadka loo idmaday. waxaan bogaadinayaa xilkasnimada, daacadnimada, gudashada waajibaadka la idin saaray ayuu yiri wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. ciidamada booliska ayaa ku guuleystay in ay fashiliyaan qaraxyo ay maleegayeen argagixisada al-shabaab. wasaaradda amniga waxaa ka go'an horumarinta iyo kobcinta aqoonta ciidanka booliska si ay u gutaan waajibaadka loo xil saaray ayuu yiri wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta ka hadlayay munaasabada xuska 76 guuradii ka soo wareegatay aas-aaska ciidamada booliska Soomaaliya. mudane Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuleysatay ukurgelida xaaladda dhabta ah ay ku sugan yihiin ciidamada booliska Soomaaliyeed. waxaan soo dhameystirnay wajiga labaad ee baaritaanka ukurgelida marxaladda ciidamada booliska ay ku sugan yihiin waxaana soo baxday in ciidanku ay u baahan yihiin kobcin dhan kasta ah. waxaa kaloo noo soo baxday in lagama maarmaan ay tahay
casriyeynta booliska Soomaaliyeed si ay ula jaanqaadaan booliska adduunka sida ka hortagga argagixisada, muqaadaraadka iyo tahriibka, ayuu yiri wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo munaasabadaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa hadaladiisii waxa ka mid ahaa: wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday talaabooyin muhiim ah u kurgalka xaaladda dhabta ah ee booliska Soomaaliyeed ku sugan yahay xag ciidan, agab, dhismayaal, daryeel iyo xirfadeed. waxaa noo soo dhamaystirmay wejiga labaad ee baaritaanka u kurgalka marxaladaha booliska. waxaa noo soo baxay in booliska Soomaaliyeed u baahan yihiin dhammaan kobcin dhan kasta ah. waxaa noo soo baxay in ay laga maarmaan tahay casriyeynta booliska Soomaaliyeed si ay ula jaanqaadaan faldambiyeedka cusub ee ku soo kordhay adduunka sida argagixisada, tahriibka, muqaadaraadka iyo dambiyada abaabulan. mar labaad waxaan mahad gaar u celinayaa dhammaan booliska ummadda Soomaaliyeed goob kasta ay ku sugan yihiin. waxaan idin rajaynayaa caafimaad, cimri dheer iyo in Ilaahay sanadkiisa nabad qab isku keeno. wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal. qodobo dhowr ah wararkeena ka mid ah ayaa inoo soo socda. taliska ciidamada xoogga qaybta gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay howlgallo la iskugu furayo wadooyinka gobolkaasi. ciidamada xoogga dalka qaybta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo lagu furayo wadooyinka gobolka Hiiraan. taliyaha guutada shanaad ee ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta gobolka Hiiraan, Korneel Faarax Cali Waasuge, ayaa sheegay in shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin sida uu hadalka u dhigay. waxaan rajaynayaa oo aan ka dardaarmayaa in la sugo amniga gobolka oo aan ka tashano sidii deegaanada gobolka looga cirib tiri lahaa al-shabaab. waxaan ciidamada farayaa in ay sugaan amniga oo si wanaagsan ay ula shaqeeyaan shacabka. waxaana laga rabaa in aan dib u furno wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Hiiraan oo aanu sugno nabadgelyadooda, ayuu yiri taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta gobolka Hiiraan, Faarax Kooshin. ciidamada qalabka sida ayaa dhawaan ku guuleystay in ay la wareegaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Hiiraan. waxayna sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga xoreynayo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa ka arimiya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. waxaana ciidamadu ay sheegeen in howlgallo lagu furayo wadooyinka ay bilaabi doonaan goordhow. ilaa iyo hadda dhanka al-shabaab ma jirto wax wara oo ka soo baxay arrimaha la xiriira furista wadooyinka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee kuwa xoogga dalka ay sheegeen in lagu furayo wadooyinka go'doonsan ee isku xira gobolka Hiiraan. dhowr jeer hore ayaa ciidamada dowladda iyo sidoo kale dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxa dagaalo ay ku dhaxmareen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan kuwaasi oo khasaare badan geystay. ilaa iyo hadda waxa meelo ka mid ah gobolka Hiiraan ku sugan dagaalyahanada xarakada al-shabaab. ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in deegaanada hadda ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan laga saari doono sida hadalka ay u dhigeen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada xoogga ee ku sugan gobolka Hiiraan. wafdi ka socda Somaliland oo sida deeq gargaar ah ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay wafdi ka socda Somaliland kuwaasi oo deeq gargaar ah sida. wafdiga ayaa sida gargaar bini'aadanimo oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahadaha dhawaan ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. waxaana garoonka ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. deeqda oo ah mid lacageed ayaa dhan 600,000 oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo ay soo ururiyeen qaar ka mid ah shacabka iyo culimaa u diinka ku dhaqan deegaanada Somaliland. xubnaha wafdiga oo ka mid yahay Sheekh Maxamed Cali Geedi ayaa lacagtaasi ku wareejin doona dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan guddiga gurmadka fatahadaha ee horey ugu dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. gargaarkan ayaa qayb ka noqonaya kaalmo gudaha ah oo horey dadka Soomaaliyeed ay uga soo ururiyeen meelo badan. Tilaabadan ayaa muujinaysa sida dadka Soomaaliyeed ay iskugu gurman karaan marka ay yimaadaan dhibaatooyinka noocan oo kala ah.
halka wax laga sugi lahaa wadamo shisheeye iyo hay-ado dana gaar ah oo wax ku soo qaata magaca Soomaaliya. Somaliland ayaa waxa lagu xasuustaa sidii ay qayb uga qaateen gurmadkii loo fidiyay dadka Soomaaliyeed ay saameeyeen abaarihii horay ugu dhuftay koonfurta Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maaraye oo wafdigaasi markii ay soo gaareen Muqdisho warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya ay ka dhaxayso walaaltinimo. sidoo kalena waxa uu sheegay in dalkoodii ay yimaadeen wafdigan gurmadka siday ee ka socday Somaliland. hadaladiisina waxa kamid ahaa oo gogola aad ku wareejisaan ama hadda tagtaan oo aad tagi kartaan sidii marmarka qaarkood dadkii kale yimid qaarkood ay magaalada laftigeeda soo booqdeen oo tageen hadba sidii aad idinku raali ku tihiin ayay dawladdu idinla shaqayn doontaa insha Allah ta'ala. marka runtii aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa magaalada. taariikhiyan ilaa intii Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaado ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale la isku hayaa meeshay doonta ha ahaato, laakiin waa la isu gurman jiray. Soomaalinimada waa la isu gurman jiray. halkana marmarka qaarkood gurmad idinku abadnaateen way ka imaan jireen. idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan Somaliland waa u soo gurman jirtay. marka wixii aad haysaan gacmaha oo markaad meel munaasib ah ku wareejin doontaan idinka og, laakiin annagu waxaanu idinku soo dhaweynaynaa dalkiinni. dareenka wanaagsan aad la timaadeen baanu idinka guddoonay. aad iyo aadna ugu faraxsannahay inaad maanta halkan noogu timaadaan. dhinaca kale Jamaal Caydiid Ibraahim gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne ee Somaliland ayaa sheegay in dhaqaalahan ay iska soo ururiyeen shacabka iyo madaxda Somaliland si ay u garab istaagaan walaalahooda fatahaadaha ay saameeyeen. qiimaha leh Soomaalinimada leh walaalnimada leh noo soo dhaweyseen aad baan ugu faraxsanahay. waajibka aan u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee Soomaalinimo inaga dhaxeeyay sida uu wasiirku sheegay marar horena dhacday marka ay dhib ku timaado Soomaali ninka kalena waa qabsataa oo waa haysataa. taasaanu idinku nimi oo idinkuna aan ugu timaadeen. insha Allah ilaahayna aynu ka baryayno inuu wixii dambana inaga hayo tanna inoo fududeeyo ayaanu idinku nimi. mar walbana waxaanu jecelahay inaanu maxooha aynu isaga qayb qaadano wixii inagu soo kordha oo aynu xogaal wada ahaano. dadkii aanu ka nimi madaxweyne iyo shacbibaba waa ka qayb qaateen hawshan. qadarka lacag ee aanu hadda sidnaana waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalnay gurmadka beledweyne. waxaanu jecelahay inaanu idinla kaashano guddidiina u xil saaran hawsha ka tashano qaabkii ugu fudud ugu wanaagsan ee aanu maxooha aynu ku wareejinayno ama aynu ku soo arkayno beledweyne. labadaba waanu ka tashan doonaa insha Allah. waa si jecelahay inaanu beledweyne soo eegno si aanu ugu warcelino dadkii samafalka soo geystay iyo waxaanu soo aragno. marka mar labaadna waan ku mahad celinaynaa sida qiimaha leh aad noo soo dhaweyseen. aadna waa ugu faraxsanahay. weli waxaad daawanaysaan janalka Al-Xurriya News. ismaqliya daawasho wanaagsan ayaan saaxiibayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. madaxweynaha Jubbaland ayaa markiisii ugu horeysay shir dowladda ay garwadeen ka tahay ka daafuray magaalada Kismaayo tan iyo markii dib loo doortay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa goorsii horeysay magaalada Kismaayo ka daafuray shirka wasaaradaha maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira. shirkan ayaa waxa inta uu socday looga hadlay habaynta dakhliga dalka iyo halka ay marayaan dadaalada loogu jiro sidii deynta looga cafin lahaa Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo khudbad ka jeediyay daahfurka shirka ayaa ka hadlay adkeynta iyo xoojinta nidaamka dhaqaalaha dalka iyo sidii dowladdu ay u wanaajin lahayd xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka dhaxeeya. waxa uu sheegay madaxweyne Axmed Madoobe in Soomaaliya ay mudan tahay xilligan in laga gudbo madmadowga dhanka siyaasadda ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira. waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii loo baabi'in lahaa deymaha dalka lagu leeyahay si dalka horumar dhanka dhaqaalaha ah loo gaarsiiyo. barnaamijkan
loogu magacdaray deyn cafinta oo aan isleeyahay waxay caddaynaysaa muhiimadda ay leedahay culayska deyntu. waxaa la yidhaha deynta marka laga hadlayo waa wax qof wax kale ku leeyahay. waxyaalaha ugu culus bay ka mid tahay hadda markaad aragtaan qur-aanka marka la dardaarmayo qofka markuu dhinto waxaa la weydiiyaa dardaarankiisu muxuu ahaa, wixii uu ku dardaarmay iyo deymaha lagu leeyahay iyo wax badan waa waxa ugu horeeya shakhsi baa laga hadlaya markaa dowlad iyo deyn marka laga hadlayo. weliba deymaha dowladuhu ay ka duwan yihiin tan qofka caadiga uu qaadanayo. waxaa laga yaabaa hadda deynta waagii ugu horreysay dowladda Soomaaliyeed oo intooda oo dhan qaar badan oo ka mid aan dhalanin lacaga la qabay ay ahayd. haddana waxaa jira wax la yidhaha dulsaar oo ku soconaysa ilaa marka dambe waddanka waa isleeyahay waa la yeelanayaa mulkiyadda sida loo wado. deyntii qofka culayska lahayd markaa maxaa u malaynaysaa mid mujtamac dhan oo laga yaaba ka dhabarka ku jira iyo ka dhalan doona oo waxba ka ogeyn deynta la sheegaya waxay ahayd in ay noqonaysaa wax dimadiisa lagu leeyahay oo isaga saa loogu leeyahay. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa wararkii aad kala socoteen janalka alxurriya news. haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u heshid wararka 24 saac halkan aanu soo gelino. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warkayaga.